Shirkaddaha Dahabshiil Group ayaa maanta waxay si weyn uga qayb qaateen ololaha nadiifinta degmooyinka kala duwan ee caasimadda Hargeysa iyadoo ay qayb ka tahay ololaha lagu nadiifinayo guud ahaan degmooyinka kala duwan ee magaalada Hargeysa oo uu cilaamiyay maayirka caasimadda Hargeysa Cabdikariim Axmed Mooge. haddaba goobta ay nadiifinayeen shaqaalaha shirkadda Dahabshiil Group maanta ayaa waxa ay tahay xaafadda idaacadda daruuraha gaar ahaan xarunta xisbiga oo runtii sida aad arkaysaan ololaha nadaafadeed oo aad u weyn ay ka sameeyeen. haddaba waxa ugu horreyn baa halkaasi ka hadlay maariikhii xigeenka guud ee xawaaladda Dahabshiil Fuaad Axmed Nuux waxaana hadaladiisii ka mid ahaa shirkadda Dahabshiil Group oo ka kooban Somtel, Dahabshiil Bank, Dahabshiil Money Transfer, Hyundai, Micro Dahab, Samsung iyo dhammaan shirkadaha groupka iyadoo ka jawaabaya codsigaasi iyo baaqaasi maayarka iyo maayir ku-xigeenka iyo golaha deegaanka caasimadda Hargeysa. waxay maanta ka qayb qaadanayaan ololaha nadaafadda ee magaalada Hargeysa oo shirkadda Dahabshiil Group ay ka shaqaynayso degmada 26 Juun. goobta maanta aan hadda ku sugannahay waxa weeyaan xisbiga oo ka tirsan degmada 26 Juun iyadoo shirkaddu ay diyaarisay dhammaan cagafyadii iska rogooyinkii 12 iska rogo 3 cagaf agabka wax lagu nadiifiyo oo ka kooban faraley majarafado iyo wax wixii kale imkaaniyada ee dadka shaqaynaya ay ka qayb qaadanayaan hawshaasi. sidoo kale shaqaalaha Dahabshiil Group ee ololahaasi ka qayb galaya waa 100 iyo dheeraad oo halkan ku sugan isla markaana ka shaqayn doona xisbiga iyo goobaha kale oo maayir ku-xigeenku inoo cayimo. waxaan u ballan qaadanaa shirkadaha inaan mar walba ka qayb gali doono wixii dan u ah mujtamaca iyo bulshada oo aan ku faraxsanahay inaanu Hargeysa wanaageeda iyo meel kasta oo ka shaqaynano aanu gacan ka geysano. waana u mahadnaqaynaa golaha deegaanka cusub ee hogaaminayaan maayirka ku-xigeenku dadaalkooda. waxa isaguna halkaasi ka hadlay gudoomiyaha shirkadda isgaarsiinta casriga ee Somtel Cabdinaasir Daawud waxaana uu yiri sida uu Fuaad sheegay saaka waxaanu ka qayb qaadanaynaa ololaha waqtigii labaad lagu dhawaaqay Dawladda Hoose ku dhawaaqday maayir ku-xigeenka la jooga halkan sida hore loo sheegay waxa jooga 12 iska rogo oo ay shirkaduhu Dahabshiil Group keeneen. waxa kale oo jooga cagafyadii waxa kale oo aanu sheegnay dhammaan shaqaalihii Dahabshiil Group ee Hargeysa joogay. waxa kale oo halkan aanu saaka aanu xalay ka wargelinay oo aanu u dirnay fariin dhammaan muwaadiniinta Soomaaliland anagoo iska kaashanay Dawladda Hoose in aanu ogeysiino oo aanu ugu baaqno inay ka soo qayb galaan qof walba inaan fariin ugu dirno mobilkiisa oo shirkaddu ay ay ka qayb qaadatay. waxaan runtii mar labaad iyo mar saddexaad u mahad celinaynaa Dawladda Hoose iyo golaha deegaanka cusub sida fiican ee ay u soo agaasimaan ee ay noogu baaq ugu soo diraan dadka muwaadiniinta Soomaaliland. waxaanu leenahay mar labaad iyo mar saddexaad dadka muwaadiniinta ah ha ka qayb qaataan waa qofka iyo caafimaadkiisa. anagu dhankiisa waxa isaguna halkaasi ka hadlay mas'uul ku hadlayay bangiga Dahabshiil waxaana hadaladiisii ka mid ahaa runtii aad iyo aad baan u hambaleynaynaa haddaan nahay Dahabshiil Group sida labadii mas'uul ee iga horeeyay sheegeen. waxa weeye mar walba shirkaddu waxay heegan u tahay oo diyaar u tahay waajib qaran weeye oo maaragtay gurigeenni aynu ku nadiifinayno magaaladaadu waa gurigaagii. marka waxa weeye Dahabshiil Group mar walba diyaar buu yahay. halkaasi ka hadlay maayir ku-xigeenka caasimadda Hargeysa waxaana hadaladiisii ka mid ahaa Illaahi Raxmaan Raxiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin. ilaahay baa mahad iskale maanta inoo sakhiray inaynu ka qayb qaadanno ololaha nadaafadda caasimadda Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ah ololihii ugu ballaadhnaa abid oo si isku mid ah oo one time oo mar kaliya uga wada dhacaya 8 degmada caasimadaba oo degmo kastaaba gaarkeeda iyo qaybaheeda ay ka sii kooban tahay laga shaqayn doono maanta. waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa shirkadda Dahabshiil Group qaybaheeda kala duwan dhammaanteed aad iyo aad baan u salaamayaa waanad mahadsantiin maalay anigoo ka wakiila madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland gudoomiyaha golaha deegaanka ahna maayirka caasimadda Jamhuuriyadda Soomaaliland xildhibaanada golaha deegaanka dhammaan anoo ka wakiila aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa shirkadda Dahabshiil Group dhammaanteed aad iyo aad baad mahadsantiin qalabka iyo agabka aad kaga qayb qaadanaysaan ololaha nadaafadda aad baad ugu mahadsantiin. markii horena aad uga qayb qaadateen maalintii hore aan dooxa nadiifinaynay si weyn oo muuqata oo lixaad baad uga qayb qaadateen. waanu idinku kalsoonahay shaqadiina quruxda badan leed qaranka u qabataan. aad iyo aad baan idinku bogaadinaynaa sidaad qarankiina iyo magaaladiina iyo degmooyinkiinaba aad uga shaqaynaysaan. Ayub Ibrahim Faraxon Cable TV Hargeysa.